السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي وإن سلام يا وأولاشي نزيف قرن waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho laba video aan arkay oo ku saabsan maamalyuun oo tusaya khatar badan tusaya marka waxaan rabaa inaan wax yar dhaho walaashay tala yar day qaadan inaan siiyo ummadda Soomaaliyeedna inaan iyo ehelkeeda iyo dadka maaragta ay ka dhalatana in bal iyagana aan wax yar la hadlo waxaan arkay laba video mid iyadoo guri ku xiran oo uu daaqada taagan yahay oo waxa afkiisa ka duulaya aad yaabayso oo caynaya iyo mid kale oo ay tusayso wixii uu maalintaas dhibaatada u geysanayay uu caynayay uu u dhaaranayay ee laha waa ku dilayaana waa isdilaya uu lahaa uu sameeyey oo ah gaarigeedii inuu jajabiyey gurigeedii inuu jajabiyey daaqadihii muraayadihii alaabteedii wixeedii dhan inuu dhulka dhigay markaan fiiriyey maamalyuun waxaan leeyahay maamalyuun horta waxaa tahay hooyo adag waxaa tahay hooyo la fahmi waayey maalintaas dhibaatadii aad rabtay in lagaa caawiyo ama wixii aad rabtay in lagula fahmo bulsho hadday tahay community hadday tahay qof kale hadday tahay la rabay in lagula fahmana lagula fahmi waayo lagugu dhibaateeyey taas markhaati baan ka nahay laakiin hal ogow ilaahay wuxuu yiri qofka adduunka lagu imtixaamo waa qofka aan jeclahay muuminka la imtixaamaa muuminka la dhibaa muuminka la dhibaateeya qofka kale shaydaanka maxaa la yiri ma xanuunsado qof markuu xanuunsado turunturoodo maxaa la dhahay waa dami dhaaf ka waran qof adduunka lagu imtixaamay caruurtiisii lagu imtixaamay bulshadii lagu imtixaamay la dhibaateeyey horta waad nasiib badan tahay oo waxaan anigu aaminsanahay inaadanba wax dambiyaba lahayn maanta because waa lagaa dhaqay kuwa hoos kuu xanta oo hoos kaa cuna oo hoos kuu caaya kuwa bareer kuula soo fadhiista kuwa bareer kuu dhibaateeya iyo haddeertaas oo wax badan ii muuqdaan wiilkaas maalintii aad soo kaxaynaysay ee aad meesha keentay iyo quruxdii iyo siduu kuu ogolaa u faraxsanaa kuu dhegaysanayay iyo hadda systemka uu ku socdo ha xanuunsanaado xanuun ha jiro cunug darooga bartay ama wax maskaxdiisii xoogaa wax galeen ha qaldanaado laakiin wiilkaas wiilku ogol ku jecel raba inuu kula noolaado wax iska bedelo ku dhegaysanayo aha laakiin halkaa waxaa iiga muuqata in gacan saddexaad ku jirto kolley qofkii ku jira ama aabihii ha noqdo ama bulsho kale ha noqoto ama qof kale ha noqotee hadduu maanta bulshada ka dhuunto hadduu isleeyahay laguma oga horta ha ogaado maalinuu dhuuban karin baa jirta allaana og horta taas waay wiilkaasna waxaa ka muuqata in la bedelay oo lagu jiro adaan tala ku siinaya malyuune wixii aad wanaag ku soo korisay iyo wixii aad ka sugaysay haddaad ka weyday naftaada iyo kuu dhibaateyn horta ilaahay waa ku jecel yahay saa waxa arkuba kaa badbaadiyey haddaan ilaahay ku jeclayn adiguna qof caqli badan ahayn meeshaas maba gasheenba iskuma xirteen intaad ag fadhiisato waxa uu ku canaaqo ku bilaabo dhibaateeyo adiga ahaan lahayd laakiin halkaa waxaa ka muuqata in ilaahay ku solonsiiyey sidii aad ku badbaadi lahayd baa ilaahay ku solonsiiyey habeenkaa waxaan arkay ee gaariga faas ku yaallo waxaan arkay ee daaqada faas ku yaallo waxaan arkay ee muraayad jajaban waxaas aday kugu dhici lahaayeen adigu kugu dhifan lahaa dhimashadu waa caadi oo qof walba maalin buu leeyahay maalintiisu dhimanaya laakiin silica daran silica ayaa daran hadduu intuu ku dhaawacun kuu geysto uu ku dhaawaco aad silicsanto isbitaal ku jirto meel taalo cid wax kuu taraysa male anigu talaan ku siinaya waxaan ku leeyahay wiilkaa horta meeshaa ka keentay iskaga celi maanta adiga isaga u baahnay adigu uma baahnid hadduu xanuunsan yahana meelaha dadka lagu daaweeyo oo lagu hayo iska gee yuu ku dhibaataynin yaan lagu adeegsanin maalmihii uu kaa maqnaa oo meelaha ay joogeen waad qurux badnayd wixii ay kaa socodsadaanna waad u taraysay saa halka adoo joogta oo Afrika joogta oo guri dhisatay oo qurux badan baa mid lagaa xiray intaad timi baa adoo qurux badan u gurmatay oo garab istaagtay oo boos fiican uga soo baxday oo adiga la'aanta aanu meesha iyo xabsiga uu galay iyo inta lagu xukumay aan lagu xukumeyn haddaan adigu garab istaagi lahayn waxaad ku gaartay maskax degan iyo miyir hadda laakiin waxaa kaa muuqata wiilkaasaa u kaxaysatay habeenna inaadan farxad ku seexan quruxdaadii inay dhuntay in dhibaato iyo murug badan ay kaa muuqato intay marka jirkaagu dhibaatoobi lahaa isaga iska fogee
meeshiisa ku dhaqaalee laakiin naftaada baa muhiime naftaada ilaasho walaashay ninkaa xaqii uu kugu lahaa waa dhacay weliba saasay tahay meesha aad geyso ku ogo ku dhaqaalay waxaad ku siinayso ku sii laakiin yuu ku dhibaataynin oo meel xun kugu dhifanin ilaahay baa ku badbaadiyey wuxuu kuula haray ma leh waana diran yahay xaqiiqtaas waaye waa diran yahay haddii xanuunkiisa laga faa'iidaysanayo oo xanuunsan yahay iyo haddii uuyan xanuunsanaynba waa diran yahay adigaa lagaa rabaa taladii qof caqli badan baa tahay qof waxalisataa tahay qof haddayan iyadu qof maskax badan ahayn maanta meeshay joogto iyo quruxda ileeda aan lahaateen baa tahay nolosha ka dhici lahayd meesha lagula rabana ma aha sidan iyo inaad ilmahaaga caawisato iyo inaad qurux badnaato iyo inaad guryo qasriya oo geedaha iyo qudradda iyo adduunku saa uga baxay aad beerato ma ahayn meeshii lagula rabay inaad qashinka gurtay ahayd inaad homeless ahaatay ahayd taasaa la raadinayay dadnimadaadaad ku gaarta milyuune yuu wiilkaanu ku dhaafinin yuu naftaada kuu dhaawicin yuu ku hadlaynin isdhaafi wiilkan hooyanimo iyo waa xanuunsan yahay hadduu xanuunsan yahay meel dadka lagu haayo adigu ma hayn kartid adaaba u baahan in lagu haayo marka ha soo dhawaysanin inta aad korin lahayd waa korsa maanta maalintii adiga lagu hayn lahaa bay ahayd maanta maalintii adigu u fadhin lahayd iyagay ahayd laakiin maanta iyagu adiga inaa hayso maaha iska kaxee yuu wiilkaasu dhaawac aadan ka kicin ama aad ku silicsanaato yuu kuu geysanin dhimashadu waa xaggeeda laakiin dhaawac iyo dhibaato yuu kuu geysanin wiilkaan arkay waxaan arkay afkiisa ka dhacayeen hooyanimo garanayn xooggii iyo mergigii iyo quwaddii iyo wixii dhibaato alla martay sidaa loogu kugu abaalguday yuu dhibaato kuu geysani meel iskaga xir hadduu xanuunsan yahay allaha caafiyo u ducee halkaa geeyo halkaa ku ogow laakiin naftaada yuu halaagin dadka milyuun ka dhalatay ama ku xeeran ama ehelka dhowla ah ama ka warhaayana waxaan leeyahay milyuun sabood bay u baahan tahay wiilkan waxay uga baahan tahay waxa kaliya inay ka baahan tahay milyuun wax kale maahe wiilkaa inaad meel kaga ogaataan oo nafteeda caafimaad iyo nabadqab iyo cibaadadeeda u heshay adigana waxaan ku leeyahay ilmaha ka fekerin hadda korisay kaa wada dhaqaaqi iyagay u daran tahay hadday ku soo dhawaysan waayaan hooyanimo ku aqoonsan waayaan kuwooday ka helayaan adiguna diintaada iyo quruxdaadii iyo sidaa u cibaadaysanaysay iyo sidai aad u qurux badnayd iyo sidaa ilaahay maaragtay waqtiga ugu helaysay aada ugu heshide wiilkan yuu gacantiisa aad u dhibaato kugu geysan hadduu ku dilo waaba dhimashadu waa xaq laakiin inuu ku dhibaateeyo oo dhaawac iyo silic ha dhiman ha noolaana baa wiilkaa ka soo socota haddaan iska fogeynin taladuna waxaa la yiri ta adigu aragto maahay waa tan qofka walaalkaaya arko khatar badan baa halkaa iiga muuqata milyuune wiilkaas hooyaad u ahayd sax waaye laakiin hooyanimadu kama muuqato iska fogee ilaahay ha caafiyo hadduu xanuunsan yahay meeshiisa allah ku caafiyo kuwa soo dirayo oo kugu soo dirayo oo kuwa adeegsanayo wiilkaas oo bedelay oo wixii iyo farxaddii iyo quruxdii ka muuqatay ka bedelay iyagay ka go-an tahay maalinteeda ay arki doonaan marka waxaan ku leeyahay milyuunay naftaada badbaadso dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay milyuun ha loo duceeyo wiilkaasna ha loo duceeyo hadduu caafiyo xanuunsan inuu ilaahay u caafiyo ilaahayna ka badbaadiyo ilaahay baa ku jecel wallaahi ilaahay baa ku jecel saa ilaahay waxaan arkuu kaa badbaadiyey saa ilaahay waxaan arkuu ku solansiiyey inaad guri ku cararto isku xirto saa ilaahay waxaan arkuu ku solansiiyey inaad dad wacato oo lagu yimaado lagaa qabto waxaan ku leeyahay naftaada wax walba maanta kaaga muhiimsan wixii aad rabtay waxay ahayd naftaada iyo naf kale aad soo saartay inay maaragta ku caawiso ood ku qurux badnaato laakiin maanta naftaada wakiilkaaga baahan shala kuwii ku dhibaateeya maantana weli meesha ka muuqda soomaalina maanta adoo caafimaad qabto ladan wax kuu tari weysa berri adoo uu ku dhaawacay ama meel xun ku dhigay ama ku jajabiyey kuma caawinayso marka walaalay horta waxaan ku leeyahay ilaahay iridiisa kaama xirin wuu ku jeceliyo wuuna kuu furaa ilaahay tala saaro wiilkaa iska foge naftaada badbaaso ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay milyuun ha loo duceeyo annagu ducadan kugu soo kaalmaynaynaa intaa iyo inka badan bay dadku qabaan dhibaato way jirtaa laakiin naftaa wax walba ka muhiimsan marka aragto cunugu inay farahaagi uu ka baxay waxba kuu tareen waa laga fogaadaa ka fogo waan ku leeyahay wiilkaas kuwa ku diraya ama kuwa maaragta dhibaato u geystay ama reerkaasaa gaarsiiyana walle maalinta qiyaamo waxbaa ina haysta culimadana waxaan leeyahay ha loo duceeyo ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay loo duceeyo abaayadayna waxaan leeyahay abaayo ilmo waxba janno kuma geynayaan camalkaaga ku geynaya camalkaaga yuu ku seejinin iyo cibaadadaada naftaadana yuu ku halaagin ka tasho waana ku salaamaya ilaahayna waxaan kaaga baryayaa cimri dheer iyo caafimaad qab iyo adiga oo cadowgaaga uu jabo